Asma Jama, that's ASMAJAMA. All right, thank you. And what did you want to say? I just wanted to say thank you, Ona, for giving me the opportunity to speak. What happened to me on that day is unacceptable. It shouldn't happen to anybody else. It made me, I used to be a carefree person, and now I can't go anywhere by myself. It really impacted and changed my life for the good and for the bad too. I just wanted asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada janalka qays iyo raxmaa waa walaalkeen qays waa maxkamadda naagtii gabadhii soomaaliyeed mindi gelisay ama mindi ku weerartay ilmaheeda hortooda runtii muuqaalkan marna lagama daalo daawashadiisa walaalayaal muuqaalka ma aha muuqaal cusub laakiin waxaa soo cusboonaysiiyey caalamul islaam dadka isticmaalo baraha bulshada gaar ahaan wadamada carabta ayaa muuqaalkan dib u soo cusboonaysiiyey ayagoo markaasi sheegayo inay aad iyo aada ugu faraxsan yihiin arrimaha ay samaysay gabadha muslimadda ah. arrimahaasi haddaba maxay yihiin? maxkamadaasi maxay tahay? gabadhani mindi ayaa lagu weeraray, 1 sano ayay jiiftay. gabadhii cadaanka ahayd oo mindi ku weerartay ayadana 1 sano ayay xirneed. kadib markii ilaahay caafimaadkeeda u soo celiyey Asma, maxkamad ayaa loo ballamiyey. maxkamad ayaa lasoo taagay Asma iyo naagtii dhibaateysay. kadib maxaa dhacay? Jody, what you did to me that day wasn't good. You should never do anything like that to anybody. But I just wanted to tell you in front of everybody today that I do forgive you. My religion teaches me to forgive so I can move on with my life. If I hold a grudge and I hold the hate you hold towards me against you, it's not going to serve me well. So in front of everybody. gabadha Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asma maxay samaysay wax intaas la eg oo baraha bulshada qabsaday oo caalamka islaamka ka farxiyay. haddaba daawadayaal warbixintan kooban aan wada dhageysano waa warbixin ku saabsan gabadhii Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asma oo ayadoo ilmaheeda la socoto mindi lagu weeraray diinteeda, xijaabkeeda iyo midabkeeda darteed. daawasho wacan. Towards you, I just want you to, at the end of all this, to understand that we're all the same. It doesn't matter what's on my head. It doesn't matter the color of my skin. We're all the same human beings. We're fighting for the same rights. I'm an American citizen and I fight for this country. Today I would fight for it as much as you would. ma jaamac oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa xijaabkeeda darteed iyo diinteeda midi u gelgelisay nafsadana dhaafin gaadhay. kadibna Asma markii naagtii maxkamadda loo soo istaajiyay ayaa Asma waxay samaysay ficil ay guud ahaan caalamku la yaabeen, gaaladina madaxa ay qabsadeen, gaar ahaan reer Mareykan. qisada sheekadan Asma haddii aad dhageysato wallahi cibra ayaad ku qaadan doontaa, waxaanaad farxi doontaa gabadheena Soomaaliyeed. muuqaalada noocan oo kalena aad iyo aad ayaan u jecelahay inaan ka sheekeeyo, sababtoo ah waxaan jecelahay dadkeena Soomaaliyeed wanaaga aynu sameynayno inaynu iska dhex aragno. muuqaalka like sar haddii Soomaalinimo kugu jirto, siina share gara waqti badan ka cuni maayo, sheekadeedana haddaan ku bilaabaya. Asma markii maxkamadda la keenay gabadhii dulmiga u geysatayna maxkamaddii loo soo istaajiyay ayaa Asma waxay tiri waa mahadsantihiin sidaad u soo ajiibteen kulankayga, isla mar ahaantaana aad u rabtaan inaan cadaalad aan helo. waxay dhahday gabadhan walaashay ah ee cadaanka ah, maalin maalmaha kamid ah anigoo ubadkayga wata ayaa waxaan ku kulanay meel cunno lagu cuno restaurant. anigoo ubadkayga la faraxsan oo cunadii wada cunayna, naagtana ay ag fadhido ayaa waxaan carruurtayda ku wada hadalnay bay tiri luqadda Sawaaxiliga. kadibna luqadayda ayay fahmi weyday, waana igu cayday luqadda aan ku hadlaayo, yacni waa luqad foolxun iyo waxaas ay igu dhahday. waa iska aamusay bay tiri luqadda aan ma lahayna Sawaaxili, Kenyaati iyo Ugandisi xasaa ku hadleen. kadib waxay aragtay inaan xanaaqi waayay, haddana waxay soo guda gashay inay diinteeda wax ka sheegto. xijaabkayga ayay cayday, isla mar ahaantaana diinteeda ayay wax ka sheegtay. kadib Asma dhiigga ayaa ku kacay oo waxay dhahday walaalay carruurtayda hortooda waxaas ha igaga dhihin, waanaad akhlaaq daran tahay. intaa kumay joogsan bay tiri midabkayga ayay ku cayday, waana ii cunsuryeysay. haddana hadalkii hore ayaan ku celiyay oo waxaan ku dhahay walaalay carruurtayda hortooda waxaas ha igaga dhihin baan ku dhahay bay tiri haddana mar labaad. kadib sheekadii halkaa marka maraysa bay dhahday ayaa waxay ila soo booday bay tiri midi.
mididii ayaanay meel kasta iga gelisay bay tiri carruurteyda hortooda. Nolosha ayayna rabtay inay dhaafiso. Muddo 1 sano ah ayaa lay daweynaya ayay dhahday. Waxaanan ku dhawaaday inaan geeriyoodo oo aan dhinto. Carruurteyduna ay noqdaan hooyo la'aan ayay dhahday. Wax kalena gabadhaasi igumay dileen. Carruur kama dileen, ma caayin. Xijaabkayga iyo midabkayga ayay igu haysatay. Oo cunsurinimo ayay gabadhaasi sidaa igu gashay bay dhahday. Alxamdulillah bay dhahday, hadda waa caafimaad qaba, waaniga idin hortaagan. Ilaahayna waa isoo shaafiye. Halkaas sanana gabadhaasi way ii xidhnayd bay dhahday, oo gabadhu intay xanuunsanaysa walaasheen naagtan iyaduna xabsiga ayay ku jirtay intay soo bugsanaysay. Waxay dhahday hadda gabadhi waan is hortaaganahay bay dhahday. Kulligiinna waxaad rabtaan bay dhahday inaan cadaalad helo oo gabadhaas wixii xukuna lagu dhufanayo lagu dhuftay tir haddii xabsi daayin tahay iyo hadday 10 sano tahayba. laakiin anigu walaashay waxaan ku leeyahay bay dhahday waan ku cafiyey. Waxaana ii ogol inaan ku cafiyo oo fursadaas isiinaysa bay dhahday diintii aad caayaysa adigu. Diintii aad darteed aad midida ii galgilisay ayaa waxay ifaraysaa bay dhahday inaan ku cafiyo. Allahu akbar. Hadallada markii ku hadlaysay dadka meesha joogay oo dhan ilin ayaa ku soo wada istaagtay, waanay wada cabsadeen. Isla mar ahaantaana waxay ku wada faraxeen go'aanka quruxda badan leh ee walaasheen Asma oo ah gabar Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. Bal eeg erayada isticmaalayso. Waxaa cafiska itusinaya, yani inaan ku cafiyo waxaa itusinaya diintii aad darteed ii dishay. Diinteeduna waa diin wanaagsan oo ku faraysa inaad iska cafisid qofkii dulmiga kuu geystay bay dhahday. Iyada darteed ayaanan ku cafiyey. Wax calool xumo ah oo aan ku hayaana ma jirto, laakiin hal wax ayaan ka codsanaya ayay ku dhahday. Walaal weligaa qofna diintiisa ha ku xadgudbin, qof walba diintiisa ku ixtiraam ayay dhahday, sida adigaba lagugu ixtiraamayo diintaada. Qof walbana midabkiisa ku ixtiraam. Dunida waxaa jooga bay dhahday dad wada kala wada midab ah, meel walbana waa lagu wada nool yahay. Magaalada aad joogtana dadka kala midabka aad ku wada nooshihiin amni iyo xasinooli kula noolow ayay ku dhahday. Cidna waxa u geysan, anigana cafis ayaad iga tahay. Wax xukuna iyo cadaaladoon kaa rabaana ma jirto. Diinteyda darteedna waan ku cafiyey. wixii meesha joogay oo dhan takbiir ayay ku dhaqaaqinay islaamka ahaa. Gaaladii iyo ninkii maxkamadda haystayna madaxa ayuu qabsaday. Waxaanu dhahay intaan maxkamad joogo weligay ma arag qofka wanaagsan. Waanay la dhaceen Asmi ficilka ay ku dhaqaaqday. Walaasheen Asmi miyaanay ahayn wax lagu faano? Miyaysan sameyn wax aad iyo aad u wanaagsan? Daawada haddaba adiga laba su'aal ayaan ku weydiinayaa. Haddii Asma lagaa dhigo oo gabadhaasi carruurtaada hortooda ay midi kugu gelgeliso, diintaadana ay wax ka sheegto midabkaaga dartiis, markii maxkamad lagu soo istaajiyo 1 sano ka bacdi adigoo 1 sano lagu daweynayay, gabadhaas ma cadaalad ayaad ka rabi lahayd oo waxaad dhihi lahayd gabadhaas hallay xidho cadaaladna waan rabaa, mise waad iska cafin lahayd gabadha sidaa ku gashay? Su'aasha labaadaan ku weydiinayaana waxay tahay Asmi ficilka ay ku dhaqaaqday muxuu ku tusinayaa? Ficilka ay samaysayna ma yahay ficil fiican? Anigu waxaan dhihi lahaa Asmi waxay samaysay ficil ku dayasho mudan, isla mar ahaantaana diinteenna dad badan oo gaala ahi ay jeclaan doonaan, isla mar ahaantaana ay isku dayi doonaan inay baadhaan. Ogsoonoona walaala, diinteenna dad badan hadday guda galaan oo ay wax ka ogaadaan wallahi way islaamayaan. Ee dadkii gaalada ahaa maba eegayaanba diinteenna, sababtoo ah dadkii waa la nacasiiyey. Qofba isku dayi karmaya, sababtoo ah qofkii saa u eega kitaabka saa u kala fura waxaa la og yahay inuu diinteenna qaadanayo. Marka Asmi waxay samaysay ficil aad iyo aad u qurux badan. Ilaahay ha barakeeyo walaashan, ilaahayna ha caafiyo. Muuqaalkan haddii Soomaalinimo kugu jirto, islaamnimo kugu jirto, walaalnimo kugu jirto, meel dheer ha gaaro aynu ku faano walaasheen. Caalamka oo dhan, carabta oo dhan baa ku faanaye, maxaa inoo diiday inagoo isku dhiignahay inaynu ku faano walaasheen? muuqaalka meel dheer gaarsii, share dheh, isla mar ahaantaana like saar, fikirkaagana commentiga gula soo wadaag, page-keenana walaal follow soo dheh haddii aan follow ku ahayn.